Somaliland maalinta Britola dadku waxay u dareerayaan goobaha codbixinta iyagoo dooranaya madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha iminka talada haya ee Silaanyo. Saddex musharax oo uusan ku jirin madaxweynaha talada haya ayaa xilkaasi u tartamaya saddex xisbi oo kala duwan. In ka badan 700,000 oo qof ayaa codkooda dhiibanaya maalinta Britola. 6 gobol oo deegaanada Somaliland ayaana laga codeynaya. In ka badan 62 qof oo goobjoogayaal caalami ah oo ka socda 27 dal ayaa doorashadan goobjoog u ah. Dadka guud ahaan waxay rajo weyn ka qabaan in doorashadu ay ku dhacdo si nabad iyo safgarad ah. Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxa laga dareemayaa astaamaha muujinaya doorashada waxaana laamiyada lagu xadhay boorarka musharaxiinta tartamaya. Haddaba maxaa doorashada laga filayaa berri dhacaysa? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Somaliland. laga filanaya in Somaliland hesho oo gasho doorasho xor oo xalaal ah oo amni ah oo kor u qaado meeqaamka ay Somaliland ku leedahay adduunyada iyo dalalka dimuqraadiga ah iyo xitaa kor u qaado Afrikaanka iyo geeska Afrika meeqaamka ku leeyahay adduunyada in dal yar oo Somaliland la yiraahdo geeska Afrika iyo alla doorasho wanaagsan intuu qabsado xor iyo xalaal ku qabsado dabadeedna cid laga guuleystay ay hesho waxaan sidoo kale rajaynaynaa in madaxweyne cusub yeelano 5 sano soo socota oo yididile cusub geliso dadka reer Somaliland. Dadka codeynaya waa in ka badan 700,000 oo qof waana tiro aad u hooseysa marka loo eego dadka ku nool guud ahaan Somaliland. waxa sababay ayaan mar kale weydiiyay Guuleed. waxa keenay waxa Afghanistan u leedahay election apathy oo ah in dadku ka niyad jabeen doorashada. Sababta keenaysa waxa weeye dadka la doortaa adeegyada ummadda ballan qaadeen ma bedelaan ama golaha deegaan ha ahaado ama baarlamaan iska raga ahaado madaxweynaha ahaado. Marka dadku way ka niyad jabeen. Yaxya Maxamed Cabdi agaasimaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa ka hadlaya farqiga u dhaxeeya doorashada berri dhacaysa iyo tii 2010 dhacday. kulli labada doorasho farqi weyn baa u dhaxeeya. farqiga weyn ee u dhaxeeya too horeysa waxa weeyaan habka loo qabanayo doorashada way ka duwan tahay totally. Doorashadan waa doorashada ugu horeysa Afrika lagu galayo iris recognition aalada la yiraahdo technology-ga oo laba jeer la codeynin. Marka doorashadan waxay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay Afrika ee aan muwaadin laba jeer codeyn karin iyadoo noqon doonta mid xor iyo xalaal ah. qaar ka mid ah bulshada ayaa iyaguna guud ahaan rajo ka muujiyay doorashada madaxtooyada Somaliland. Wallahi doorashada Somaliland waxa laga filan karayaa shayga ugu muhiimsan ee doorashadaasi dadka cid walba qof walba ku mudan ee ugu muhiimsan u yahay nabadgelyada inay tahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in isbedel khayr qaba inoo dhaco. oo ay sidaan aan maanta ku jirnay sixir bararkan si ka wanaagsan Ilaahay inoogu bedelo. Waxa la dooranayaa madaxweynihii shanaad ee Somaliland waana doorasho ay dunida oo dhan kor ka wada eegayso. waxaase dad badan ay u arkaan in Somaliland ay gaartay hannaan siyaasadeed degan oo la daan qaadi kara dunida casriga ah. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Hargeysa.